وبركاته ولاشين ياسمين الجعلية هل كنت داوني سما يوتيوب channel كيجي ياسمين الجعلية official أصحابتي شرفت لي سودو هذا قاعد مفروض سودو هذا بليز صديقات تمرك كوجو رئيس عدي صوب وقت يوتيوب channel كيجي حيجي لو إن سبسكرايب كذي وعادي عدو مهتم شير إيده أصحابتي هذه إلو ذاك سي مقال كيجي وما في عنه وجار لايك إيده كومنتي يجو صقر halka hoose waa ii dhiirigelin aad iyo aad ayaan mahadsantihiin asxaabta sharafta leh Soomaaliyeed dhamaan halkan wallahi bila aad iyo aad ayaan u qiireysanahay Allahu akbar wallahi I don't know waxa dhahaa laakiin just Soomaalida wallahi meel walba way ku dayacan yihiin hooyo Soomaaliyeed oo aan aad iyo aad ugu qiirooday dhibaatada ku dhacda ayaan rabaa inaan caawa idin la wadaago insha Allah hooyadaasi waxa ay degan tahay wadanka xagaasi cariga ee America hooyadaasi waxa ku dhacay mucjiso aad iyo aad u weyn hooyadu waxa ay ka hadlaysaa inuu wiilkeedii dhintay oo u dhintay cudurka coronavirus hadda inta ma xuma oo qofka waxa ay dhahayaan ba xataa qofka coronavirus marka uu dhinta ma la dhaqaayo ma la taabanayo علشان عذرك فافتان كأي الديدايا دتكي نقايا أما دتكي تاونايا إن أي قادان أوكي تاسوا بلقرت لكن واحد بكوز دوجن هويداني waxa ay leedahay wiilkeedii waxa laga la baxay kaliyaha bal ila daawada asxaabta ama ila dhageysta hooyada dibka ka soo martay ama sida ay ku ogaatay sababta wiilkeeda kaliyaha loogu la baxay ila daawada illa halka illa meesha xundurta hoostiisa uu qalla diiga waxaan kula wajigiisa waxay ku saynaa waraaba cunay naxariis male maanta hadii laga gilgalan way arinta Soomaaliya dhan waxay kaloo shaq ku jira ha laakiin ilaah baa ka shifay ilaah waxa la isqoob iyo sadanka qof wali qof lama furin islaanta sayna ka inta soo dhagtay mid Allah fura inta soo fura garku u dambeeyo inta kale indheena way ka qaleen baytir marka ilaah baa ka shifay message-koodii baan haya ninkii markaan u tagay yahuud shan dumar aan ku tagnay meeshii meedka oo nin yahuudi faan ku wato markaasaan waa kan nin waxa ay tiray wajigiisa ma la fiirin kara subhanallah qofka duu dhintay caadi buu dhintay hadii dhahan lama dhaqay way uu qalqalanaya halkaas ka bilaw ilaa iyo wixii tiraahday sida uu qalan yahay indhaha looma dhameyn karo wallahi waa xanuun subhanallah gaalada wallahi billahi waa dad fiican bini'aadanimada wax ka yaqaanaan ayaa la dhahaa laakiin bini'aadanimada waxba kama yaqaanin hoos ay ka cunayaan subhanallah balaan si daawano maamada waxa ay leedahay kasan oo gaariga kiima meedkay markaas ay inantii la socotay tirshale ba islaantii la asikana lagu soo qaad ma sidaas waan u tagay waxaan ku yiraahday near justice baan ku yiraahday inankaygi 12 cashaan raadinay 18 talaagadu ku jiray I want to know baan ku yiraahday Dr. Wasti baa qashay in aad ii furtidaan arko inuu inankaygi yahay inuu ahayn waa qabuuraha joogtaa markaas shan dumar kaliya inuu rag ma joogo marka miyuu ku furay way furay ilaa weyn baa masala ku rid rabay meesha ma kuma ridin wuxuu waxa ay tir maamadaas anagu shan dumar ayaan ka qayb galnay ay tiraahday duugtii marka waxa ay dhahday wiilkaygu waa weysanaam intaas iyo dhinsanaay oo dhintay alashan oo ku jiriyay maxaa la dhahay frinjeerka marka waxa aan rabaa ay tiraahday inaan arko wiilkayga sida oo aan u ogaado ama u xaqiiqsaday inuu yahay wiilkayga hal ay furay ay tiraahday maamadaas waa ay ku dhabar adeegtay marka waxa ay kala kulantay ila sii daawada ragga Soomaaliya raggu Soomaaliya in lagu tukado in COVID-19 baa la yiri weeyo lama mayraye waxay nagu yiraahdeen waa la tolo been ma furna ilaa baan ku waxaad moodaysa talaagadu miskiin way iska saas waa dayac kale waa maxkamad kale way taasaba dacwad ah waa dayac kale inanka waxay ku yiraahdeen moodtahay subhanallah wala talaayeen ugu dhaxeenay tiraahday mana la tolin alla xanuun badana dalan dalkaada ahayn dareen ku joog markii lagu dhahayo markii la dhahayo wallahi waa saas subhanallah
alla ma la awoodo ma ogi inaan wadankeena lagu soo duugto qofkii dhinta ma la awoodo ma ogi wallahi wadanka qof walba waxa fiican qofkiisa marka uu ku dhinto inuu wadanka u qaadan karo laakiinse ma la awoodi karo oo ma noqonaysa in la qaado qofkii ka dardaarmo waa loo qaadaya laakiinse qofkaas laftirkiisa waxa la dhahaa caloosha ayaa laga bixinayaa because qofku waa uu urayaa marka uu dhinto oo ka baxda nafta ka baxda marka ila si daawada maamada waxa ay leedahay wallahi I can't ma hadli karo subhanallah horseed markuu waxay ku talaagada maxaa la yiraahdaa isbaab waxbay ku qabqateen buu beena waas sidaas uu kala tagay sidaas yaa yiri waxbay ku qabteen ninkii talaagada wuxuu waa la qashay waxba lagu qabqabtay been wax lagu qabtay male waa kala tagay hilibkiisi halkan oo dhan halkaas ka bilaabay ilaa hoos markaasaan qaracmay markaas ridacay gabdhii qabteen dumarkii qaylo inanta kiisi waa taqaylinaysa ay tiri abben oo markaas ay wada fureen waxba ma xilin saas hata oh my god subhanallah allahu akbar waa kala tagay hilibkiisa ay tiraahday because qofkii saas loo jeexay oo kala tagay oo isku maysan soo celin xataa inay tolaan qofkii isku geeyaan subhanallah alla maxaa dadka qaarkood damiirkooda xun yahay subhanallah xaasidnimintaas gaartay ka waran alla ilaahu hooyadaas beerkeeda u adkeey xisugmay qaban marka waan aragnay ilaa intii la qaloo dhan markay adduunkii ka wada bixiyeen wax sponge bay geliyeen meesha hadda dhiiggii ku jirta sponge laakiin korkiisa oo dhan dhiig ku jirtay ma kala baxeen wax ku jira male sponge baa ku jira ya sponge baa ku jira waxa ay tiray maamada markii ay qaleen adduunkii oo dhan ay kala baxeen ay tiraadeen because waxa ay u baahnaayeen markii ay kala baxeen ay tiraadeen dhiigga la daadanaaye waxa ay tiri sponge ayay geliyeen subhanallah soo dhiigu u dhuuqoosan banaanka u soo bixin oh my god ya allah sponge waxa weeye baalkan joodariyaalka iyo buushka ilaha Soomaalidu buushka kaasay ku gureen ka buuxiyeen meesha ya ana laakiin oo beerkii iyo wadnihii iyo kuma jirin waa feerihii ya hatta cunii bay kala bixeen ya hatta cunii bay kala bixeen waxaa COVID-19 lala baxay calooshii subhanallah hatta cunihii bay kala bixeen ay tiraahday hatta cunihii oh my god cunahaasna waxaa loo gelinayaa dad oo hadalka dhibaya waxa jira oo cunaha dhibaato kaga dhacday sida kansar kaga dhacay oo cunihii laga bixiyay oo dadkaasi waxa ay ku hadlaan qalab ay ku xirxiran marka dadkaasi oo kale ayaa loo gelinayaa loo gadayaa allahu akbar cunihii xataa ay kala bixeen iska qashaan ya sidaasaynu la iska qalqalan COVID-19 lama qasho sharciga laakiin way qashaan Soomaalida way u barteen waa waxay u barteen marka halkaas waa iska caddahay in la qasho wiilkii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi ma qadara laakiin markii u horeysay waaye ee masaajidka mid baan niiskaygu yaar war niiskaygu yaar waran mudaharaadna dhakhtarka aan tago waxaad samaysaa dal casayro wallahi billah waa calool xumo aad biyo aad u calool xumo badan alla ilaahay wadankeena nabad inooga dhig alla ilaahay oo dhibaatada oo dadkeennii ummadeennii Soomaaliyeed haysata ilaahay oo naga dulqaad aamiin idaa asxaabtayda wallahi waa murugo aad iyo aad u murugo badan asxaabta sharafta leh ma sii wadi karo warka aad ayaan ugu naxay ugu calool xumooday maamadaas aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin subscribe-kana ay naga iloobina idinkoo aad iyo aad u mahadsan sii share gareeya muuqaalkan si ay u gaaraan dadka ee ugu fooldignaadaan aysan isku halaynin bini aadanka ama gaalada inay naxariis badan yihiin aysan isdhihin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu